habeen wanaagsan dhammaantiinba intaynaan barnaamijkeenaan gudagelinayno caawa halkaan isugu nimi waxaan ku bilaabanaynaa maadaama aynu dad islaam nahay aayadaha quraanka oo inoo akhriyo maxamed cali cabdi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون تاسو آياتي القرآن تقلوا حوية إلهي وحيري واستعينوا بالصبر والصلاة قال ميس الصبر هي الصلاة sheekh maxamuud waa mahadsan yahay aayadaha quraanka iyo wacdigaas uu maaragtay inoo soo jeediyey ilaahayna ka dhigo kuwii ku camal falo oo maaragtay raaca wanaaga waa habeen farxadeed ilaahayna barakeeyo burcad haysu keen mariyo ilaahayna hayna mideeyo waa farxad caawa inaan halkaan isugu nimaadno oo aan ka tashano aayaheena midnimadeena iyo danaheena guud iyo gaarba barnaamijkan waxaa soo qaban qaabiyey kolley iyadoo oo gadaal laga sheegi doono jaaliyadda maakhir reer maakhir gobolada haylaan sanaag bari iyo jubbooyinka waxaan ku soo dhaweynayaa marka mikrofoonka guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ahna guddiga jaaliyadda UK khadar maxamed gaas inuu bal ujeedooyinka iyo waxaynu maanta halka isugu nimi iyo waxa laynooga baahan yahay oo isagu inoo faahfaahiyo khadar ku soo dhawow dhammaantiin aad baad u salaamantihiin mudanayaal marwooyin salaadiinta cuqaasha waxgaradka reer maakhir meel kastay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaa farxad ii ah inaynu caawa isugu nimi xaruntan halkana aynu kaga hadlayno arrimaha deegaanka arrimaha gaar ahaaneed ee waddankana aynu joogno qodobada aynu caawa ka hadlayno waxa ugu muhiimsan sidan hoos ku qoran midnimada iyo wadajirka reerka aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa cid alle ciddii ka shaqaynaysaa raallina uga nahay annaguna aanu waxuga qabanaynaa wadaas waa number 1 nabadda iyo kalsoonida reerku iyada laftigeedu waxa weeye waa qodobkayga labaad qodobka saddexaad waxa weeye horumarinta deegaanka gaar ahaan waxaanu aad u sabooraynaa haddaanu nahay deegaanka iyo muxuu ahaayey jaaliyadda ku nool waddankan UK dhismaha dekadda laas qoray aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa cid alle ciddii mushkilad ku wadda ee dhibaato ku wadda raalli kama nihin waxaan u sheegaynaa cid alle ciddii mushkilad tabadcina ka sameeyaan inaanaan ka raalli ahayn ee aanu rabno nabad iyo wanaag dekadaasina inaanu dhisno taas waa number 1 number 2 waxaa kaloo aanu aad uga shaqaynaynaa dhismaha iyo horumarinta iyo dardargelinta jaamacadda baraneed iyada laftigeeda muxuu ahaayey aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa aanu kaloon rabnaa inaanu wax ka qabanno aanu aad u soo dhaweyno arrimaha bulshada reerku meel alla meesay joogaanba waxbaanu ka qabanaynaa waanu hormuud baanu ka noqonaynaa dadkana taageero buuxda ayaanu ku siinaynaa ta afraad in beesha jaaliyaddu meel alla meeshay kasta ay joogto inay ku xisaabtamaan siyaasad ahaan dadku ay meel u wada socdaan aad iyo aad baanu taa laftigeeda dareenkayga rabnaa inaanu caawa halkan uga sheegno waxaan kaloon rabnaa inaanu caawa halkan ka sheegno inaanu meel uga soo wada jeesano cid alle ciddii horumarinta reerka ama muxuu ahay deegaanka damcada inay fadqalalayso taa laftigeeda raalli kama nihin waxaanu leenahay kii guda ka samaynaya kii dibad ka samaynaya naga joojiya raallina kama nihin wixii jaaliyadda iyaga gudaheeda dhex yaalla waxay ku qurux badan tahay sidii awalba loo xallin jiray ee wanaagga iyo sharaftahayd in loo xalliyo laakiin wixii external forces ah dhibaatooyinka outside-ka uga imanaya in iyagoo midaysan ay uga soo wada jeestaan nabadda iyo wanaagga iyo mataqaana sharaftana la ilaaliyo haddaanu nahay reerka jaaliyadda muxuu ahaayey reer UK ee maakhir deegaanka jubbooyinka iyo howlaha laga wado faamiliga degan waxaanu siinaynaa Jubbaland taageero buuxda haddana waxaan ku soo wareejinayaa guddoomiyaha guddiga jaaliyadda reer UK Sheekh Xasan halkan jaaliyadda maakhir guddideeda shirka ay qabanqaabisay oo doonayso inay baaq idiin soo gudbiso hawada idiin soo mariso ilaahay waxay idinkaga duwo waayo waxay la tahay inay sidii wanaagsanay tahay midnimada iyo wadajirka reerka waa garanaynaa macnihiisa waa midnimo waa barako waa xoog
weeye bay ka turjumaysaa waa magac iyo karaamo iyo sharaf reerku yeesho nabaddu waa la mid waynu ognahay nabaddu waa wanaagsan tahay waa hullahu wado waa horumar bay keentaa hurdo wanaagsan bay keentaa waa markaad helaysid oo aynu ka helayno gudaheenna iyo soomaalida kaleba aynu ka helayno aad bay u wanaagsan tahay ha lagu dadaalo horumarka wuxuu ka tarjumayo waynu garanaynaa waxa weeyaan infrastructure sida dekedda sida jaamacadda sida waxyaabo badan oo la xidhiidha waa wixii bulshadu ku noolayd oo fakriga kaga baxaysay oo dhibta kaga baxaysay fakrigaa ujeeddadaynu inagu isarkayno oo farta isku fiiqayno deked la-aanta iyo dariiq la-aantaa leh haddaynu helo waxaa waa ka baxaynaa waxaynu doonaynaa aanu idin soo gudbinaynaa inaad dekeddaa gacmaha iyo adimada iyo madaxaba ku qabsataan ciddiyaha ku qabsataan wixii ka hor yimaadana dhawiyo dheere dee waxaanu ka taaganahay meesha aanu sheegnay beeshu inay isku tashato macnahaata waxay ka tarjumaysaa siyaasadda iyo nabadda iyo midnimada dac walba itijaah in reerku yeesho waxaanu idinka codsanaynaa shirarka la wado oo naloo sheegay hadday jiraan in laysu yimaado oo turxaan bixin iyo isu soo noqod fiican iyo wanaag laysugu yimaado waa taageersanahay waxa aanu aad iyo aad idinku celinaynaa midnimada oo aada og tihiin qiimaha ay leedahay iyo waxay idin tarayso waxaanu kale oo idinku celinaynaa mar labaad nabadgelyada oo iyana aanan idiin sheegayn macaanka iyo waxa ay leedahay haddii aan laydin dirqiin waxaanu idiin sheegaynaa horumarka oo sidoo kale ah sida khaasatan dekadda laas qoray oo ninka khayrka qabaa yidhi waa dhisayaa loo wado waxaanu idinku celinaynaa mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad isku xisaabtanka beesha macnaha itijaah siyaasadeed iyo itijaah midnimo intaba way leedahay waxaanu kale oo idinku celinaynaa reer daldurugsiga dadka qaar ka cabanayaan in la ilaaliyo oo laga feejigaado oo wax laga qabto oo la yidhaahdo noo daaya udubka annagaa leh waxaanu kale oo halkan horena idinku sheegnay haddana sheegaynaa dadka reer jubbaland oo aynu qayb ku leenahay taageeridda maamul samaynta iyo inaynu ka helno qaybteenna waxaanu kale oo idiin sheegaynaa oo aanu idinka codsanaynaa dadka u taliya deegaanka ka taliya oo hoggaan dhaqameedo ah hadduu caqli yahay iyo hadduu suldaan yahay iyo hadduu wax kasta yahay iyo hadduu wax garad yahay in beesha la turxaan bixiyo oo si wanaagsan shir loogu qabto oo looga dhex shaqeeyo intaasaanu idinka codsanaynaa anigoo magacaygu waxa weeye cabdirasaaq maxamed xaaji cali wax sidaa ah ku siyaadin maayo hadalkii guntiisii iyo gunaanadkiisiiba odayadii iga horreeyey baa sheegay waxaanse sii xoojinayaa taageeridda ay jaaliyadda u qabto mashaariicda horumarinta sida kan dekeda iyo jaamacadda maakhir iyo wixii kaleba sidoo kale waxaan xoojinayaa odayadu hadalka yidhaahdeen oo maamul samaynta jibbooyinka oo aanu qeyb ka degno oo aanu taageersannahay oo aanu ka codsanayno maamulka inaan wax faragelina lagu sameeyo waxaan kusoo gebagabaynayaa kusoo gunaanadayaa oo aan mar kale ku celinaya odayadu hadalkay sheegeen oo ah dhulduruqsiga in la joojiyo
hadalkaana cidda ay khusayso iyadaa is-og oo way caddahay mid qarsoon ma aha intaas ayaanu kusoo gebagabeynayaa waana ka baxayaa waana idin wada salaamay muhiimadda aynu maanta isugu nimi waa midnimadeena kolley oo waa laga wada dheregsan yahay waxyaabaha ugu muhiimsan waa inaynu midowno taageerno mashaariicdii ka socday dhulkeenni sidii dekedda jaamacadda iyo wixii horumar kale oo la samaynayo anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda halkan waxaan halkan uga baaqaynaa oo xoojinaynaa oo leenahay warsangalow shira oo isu taga oo aalihiina ka tashada horumarkiina ka tashada nabadgelyadiina ka tashada khilaafaadkiina iyo waxaydu ku dhex jirana dhammaysta oo ummad qarana oo wax qabsata oo talo leh itijaaha mid siyaasiya mid sooshiala mid dhinac kastaba ah waa inaad noqotaan ayaanu talageli ahaan halkan maanta fariin ahaan idiin soo gudbinaynaa wixii taageeraad nooga baahan tihiinna diyaar baanu idinla nahay waana idiin soo ducaynaynaa in ilaahay garabkiina galo mashruuca dekedda waanu taageersannahay waxaanu leenahay inankaa wadaa wuu ku mahadsan yahay hawshaa uu wado ha lagu taageero ha lala ilaaliyo yaan la qubini ha la dhammaystiro ciddii ka soo horjeeda ama khilaafaad hadday jiraan warsangeliga dhexdiisa ha la arko oo wixii ay iskaga soo horjeedaan ha la weydiiyo oo hadday qaldan yihiin haddii qaladkooda ha la soxo hadday dee wax dawa ku hadlayaan hala garmariyo waxaad mooddaa xaggii horumarka inaynu ka gaabinay sababo badan awgood hase yeeshee waxaynu aad maxaanku idhahda isugu ammaanaynaa ama maxaanku idhahda ugu ammaananahay dhinaca nabadgelyada oo dalkeennii yahay maanta meel nabadgelyo dadku ku wada nool yahay inkastoo layna yidhaahdo aaggaasi waa aag waa soona maxaanku idhahdaa conflict waa dhul maxaanku idhahda la tegi karin taasna waxaynu ognahay inuu yahay dhulkeenu nabadgelyo inuu yahay maxaanku idhahda meel aan laysku haysan in cid kastii iman karto hase yeeshee waxyaabahan maxaanku idhahdaa soomaalida maxaanku idhahdaa ducayna ka xigtaa ay ina ku tiraahdo soonahaasi waa maxaanku idhahdaa soona xayiran taasna maxaanku idhahdaa innaga ka gaabinay oo aan dadka u sheegin arrintu si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa dhulkeennii ama degaankeennii waayadan dambeeto inuu noqday waddo halaq oo cid kastii haweysatay cid kastiina soo gashay maxaanku idhahdaa hadduu yahay maxaanku idhahdaa mid calan sita hadduu yahay mid maxaanku idhahdaa suralka soo gaabsaday intana waxa wada innagaa wadna ma aha dad maxaanku idhahdaa iskood isku yimi oo madax bannaan intaba maxaanku idhahdaa innagaa wadna oo dad innaga ka mid ayaa wada arrintu si kastaba ha ahaatee waxaa loo baahan yahay maxaanku idhahdaa arrintan inaan wax ka bedelo intaan waxaan ku darayaa shirkan hadda maxaanku idhahdaa laleeyahay waxaad laga qaabanayaa dhulkii shirka aad baan usoo dhaweynayaa waxaana jeclahay xaaladda maanta lagu jiro inuu wax ka bedelo maxaa yeelay dadkan wuxuu lahaan jiray cis iyo sharaf wuxuu lahaan jiray karaamo wuxuu lahaan jiray maxaanku idhahdaa xadaarad soo jireena waxaan ka raday tii in la soo celiyo la isu yimaado la shiro wixii turxaan la bixiyo maxaan ku raday waa mid muhiima marka aan xagga nabadgelyada ka hadlo nabadgelyadu waa arrin aad u muhiima nabadgelyo haddaan la helin horumar ma jiro nabadgelyadeena waxaad moodaa in maxaan ku radaa faragelin ku jirto oo dibadda leen maxaan ku radaa qabaa'il innagoo kaleeta ay soo maartay imanayaan oo doonayaan inay nabadgelyadeena xumeeyaan inay inaga keena iska hor keenaan taana seen uga hortegi karno waa loo baahan yahay arrimaha iyaga ah oo aan idin leeyahay nabadgelyada qabaa'il baa wada qabaa'ilkana waxaa gacanta waxaan soo hogaaminaya dad u dhashay mandaqada odayaasha dhalinyarada haweenka waxaan ku salaamayaa salaanta salaamku salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta haddaan ka gudbo waxay la tahay hadalkii odayaasha yidhi muhiimadda ugu weyn maanta shirkaan isugu nimi waxaa weeye inaan dadkeennii jaaliyadii maakhir aan u dirno baaq taageero baaqaasi waxaa weeye lambar 1 in la taageero wixii midnimaa lambar 2 in la taageero waxyaabaha waddanka horumarka gaarsiinaya sida dekedda jaamacadda maakhir iyo waxyaabihii la mida haddaanu nahay jaaliyadda maakhir odayaasheeda dhalinyarada guddiga waxaanu mar kasta
aanu taageeraynaa wixii horumar iyo nabad iyo midnimo ah. dadka gudaha jooga waxaan u sheegaynaa walaalahayaa inay sidaasoo kaleto sameeyaan wixii midnimo ah, nabad ah, horumar ah ay meel uga soo wada jeestaan. markaase waxay taraysaa dadka dibadaha ku nool inay wax taraan. haddiise gudaha aan midnimo ka jirin dadka dibadu wax badan ma qaban karaan. waktiga kan xaadirka ah maamul waxaa yimid dowladdaa timi federaal ah ama somaliland ha ahaato ama ha ahaato puntland ha ahaato ama meel kale soomaali oo dhanba jubbooyinka ha ahaato waxa weeye degmo ilaa heer gobol ilaa caasimadda federaalkaasi un baynu qayb ka nahay inagu inaynu maanta isdhisno waa xaq baynu u leenahay. markii hore waxa weeye qabaa'il baa jiray, maanta sidii aynu isu dhisi lahayn dadkana waxa weye shicibka ayay arrintu ay khuseysaa gudaha ku nool. inagu ra'yi may ka bixin karnaa dadka shicibka ku nool waa maxay inay ka fekeraan ayagu dantooda meesha ku jirto aayahooda moogto salaadiintii baa joogta in shir gudaha laga qabto dabeetana aynu taageero dhammaanteen oo dhan jaaliyadaha dabadda jooga oo dhan inaynu si taageeraa u taageero. taas ayaynu horumar ku gaari karnaa. horumarka nabadgelyadu waxa weeye waa waxa muhiim qofka bini aadamka noloshiisa. magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdalle. waxaan halkan ka soo jeedinayaa inaan taageero hadalkii oo injineer Faysal Xawar iyo odayaashii laas qoray maaragtay shirka la soo hadlay barnaamijkii ay maaragtay noo sheegeen oo teleconference-kii ahaa aad baan u soo dhaweynayaa. waana arrin aad loogu farxo. waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka dega gobolada Sanaag iyo Highland iyo Bari inay ka shaqeeyaan midnimadooda. wixii differences ama ka dhaxeeyana ay iyagu xal u noqdaan oo xaliyaan, hadday yihiin isimo, hadday oday yihiin, hadday suldaama yihiin. tan labaad waxaan mar labaad taageerayaa dhismaha dekeda laas qoray jaamacadda iyo deegaanada kale ee u baahan in wax laga qabto in loo guntado iyagana si aynu horumar u samayno. waxaan mar kale u mahad celinayaa dadkii barnaamijkan ka soo qayb galay. waxaana leeyahay waxaynu u baahannahay maanta inaynu midowno, inaynu ilowno waxa naga dhaxeeya, inaynu u guntano sidii aynu inagu wax u qabsanahay dadkeena iyo dhulkeena u horumarin lahayn. cid kasta oo danaynaysa inay midnimada mandiqadaas wax u dhintona waxaan ugu baaqayaa dadku inay meel uga soo wada jeestaan si aan looga dhex faa'iidaysan. waxaan sidoo kale anigoo ku bilaabaya magacaygu waa Cali Guray Dirir. waxaan sidoo kale baaq u diraynaa dhammaan dadka ka soo jeeda mandiqada in ay sidii horumarka iyo midnimada odayaashu bay u sheegeen inay ku dadaalaan. waxaan kale oo aan soo dhaweynaynaa shirkii haddeer telefoonka ahaa oo inoo sheegeen gudoomiyihii degmada laas qoray iyo ninka mashruuca wada dekeda. aad iyo aad baan isagana u soo dhaweynaynaa. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa wixii waxqabad ah oo dalku waa ballaaran yahay. dhibo badan baa ka dhacay, burbur badan baa ka dhacay. wuxuu u baahan yahay dalku waxqabad badan in loo wada guntado. waxaa kaloo aan baaq u soo jeedinayaa isimada guud oo warsangeli in ay midoobaan, isu yimaadaan, cuqaasha odayaasha laga tashado aayaha dalka iyo danta dalka. waayo maxaa yeelay dalka dantu waxay ku jirtaa dhammaan odayaasha, cuqaasha, shacabka in looga soo midoobo hal meel. waxaan kale oo baaq u soo jeedinaynaa aanu soo dhaweynaynaa maamulka laga sameynayo Jubbaland. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maadaama dawlad federaali ay dhalatay. waxaanu ka codsanaynaa sida dastuurku qorayo oo ku qoran dastuurka constitutionka in la ilaaliyo maamulka Jubbalandna ay dawladda federaalku taageerto. anigoo la magacayga la Sheekh Maxamuud Cabdi Cabdalle waxa aan horta hambaryo u dirayaa maamulaha dekeda laas qoray iyo maayarkii magaalada laas qoray Yuusuf Jaacdibed. waa in teleconference-gii hadaladii noogu sheegeen aad baan u soo taageeraynaa. waxqabadka dadka wadana waanu taageeraynaa.